halkan 2016 laba nin ayaa soo galay albaabka hore ee bangi ku yaala Taybi waxay xirnaayeen maaskii koofiyado midna albaabka ayuu istaagay halka saaxiibkiisna uu toos u tagay mashiinka ATM-ka kaar muusan gelin lacagna kama dalban waxna ma qorin xitaa inuu jabiyo kuma fikirin arintu kaliya waxay noqotay istaag oo sug kadibna sheeko cajaa'ib leh ayaa dhacday ATM-ki ayaa bilaabay inuu lacagta soo saaro hab waaliya lacalla hadii aad waqtigaas halkaas joogi lahayd waxaad heli lahayd lacag inta noloshaada kugu filan yacni uma baahnid inaad sii shaqaysid ragan waxay la baxeen lacag aad u badan waxayna ka qarsoomeen laamaha ammaanka laakiin arinta yaabka leh ayaa ahayd in kaliya arintan aynan ka dhicin halkan ATM balse magaalooyin kale ay isla sidan oo kale uga dhaceen ilaa 20 xarumood ayaa la tilmaamay weerarkan aadka u qorsheysnaa wuxuu socday 2 sano waxay ruuxeen nidaamyada maaliyadeed ee caalamka in ka badan 100 bangi oo ku yaala 30 wadan ayaa la dhacay lacagta la xadayna waxay ku dhowdahay $1 bilyan dhacan ayaa ahaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bangiyada lagu dhacay taariikhda hawshan waxaa ka dambeysay koox hackers oo lagu magacaabo Carpana Group balse hogaamiyuhu waa maskaxda qarsoon oo aanan cidina garanaynin balse waxaynu doonaynaa bal inaan horta soo helno siduu u dhacay weerarkan iyo qorshahan 2 sano socday inaan ku soo koobno daqiiqado waxaan heli doonaa maskaxda qarsoon arintan waxay bedeshay ciyaarta weerarada cyberka waxa guud ahaan la qariyay magaca bangiyada la dhacay iyo shaqaalaha ku lugta lahaa balse si aan sheekadana u fahanno waxaan isticmaalaynaa magaca Faarax oo ah mid ka mid ah shaqaalaha bangiyada la beegsaday saaxiibayaal intaan gudaha muuqaalka gelin aan ku xasuusiyo inaad nagu soo biirtaan muuqaalkana like inoo saartaan taasi wax badan ayay inoo tahay soo dhawaada saaxiibadeena quruxda badan 8 Abriil waa Talaado jawigu wuxuu iska ahaa mid caadi ah Faarax wuxuu ka shaqeeyaa bangi ku yaala Ukraine waa shaqaale la ixtiraamo laakiin uu madax adag yahay ma update garay Windowskiisa maalin isagoo kafee iska cabayo kana fikirayo saaxiibadiisa shaqada email ayaa u soo dhacay wuxuu ka yimid emailka saaxiibkii Sergey wuxuuna ahaa file Word ah ciwaanka faylkuna waxa uu ahaa u hogaansanaanta xeerka federaalka 115 wuxuu markaa la noqday mid muhiim ah sidaas darteedna Faarax wuu furay wuxuuna aqriyay faylka kadibna si degdeg ah ayuu u xiray oo shaqadiisa caadiga ayuu ku laabtay balse arrin aan la fahmi karin ayaa dhacday bil kadib Faarax oo fadhiya shirka madaxda ee bangiga iyo maamulaha bangiga oo aad uga naxsanaa dhacdooyinka dhacay loona sheegay in bangigiisii la dhacay maamulku wuxuu ahaa mid aad u xanaaqsan maadaama ATM-yadii bangiga bilaabeen inay lacag badan soo daadiyaan waqtiyo kala duwan iyo goobo kala duwan bangigu wuxuu wajahay weerar cyber ah sidaas darteedna shaqaaluhu waa inay feejignaadaan oo aysan furin emails cabsi ah waxayna ahaayeen qodobadii xog u saaray maamulka taasoo uu in badan ku celceliyay inay ka digtoonaadaan emailiska isla bangigan wuxuu kireystay shirkadaha amniga internetka ee Kaspersky-ga si ay u baarto arintan waa bangigii uu ka shaqeynayay Faarax nin lagu magacaabo Yuri Thunder wuxuu ka mid ahaa kooxda baaraysa kiiska wuxuu hubiyay hadisyadii ATM-yadii la weeraray si uu u raadiyo malware laakiin waxba ma helin hal raad xitaa oo malware amuuna helin wax walba caadi ay u muuqdeen wax la raaco ama tilmaamna ma jirin laakiin bilo kadib Yuri oo baaritaankiisii bangiga Faarax ku gudi jira waxna la ayaa waxa soo wacay lambar degdeg ah saqdhex habeenimo waa 9 habeenimo waxa soo wacay maamulaha xisaabaadka bangi weyn oo Ruushka ku yaal wuxuu ku yiri Yuri adiga iyo kooxdaada waa inaad la xiriirtaan IT-geena bangiga dhibaata ayaa jirta xogaa kadibna mid ka tirsan shaqaalaha Kaspersky-ga wuxuu tagay bangigaas Ruushka ku yaal dabcan Ruushka iyo Ukraine xogaa ay isku jiraan diyaarad khaas ah ayuu markiiba ku yimi wuxuuna u yimid IT-ga bangiga oo argagaxsan wuxuu yiri qof ayaa gacanta ku dhigay domain controllerka bangiga tani waa wadnaha shabakada kombiyuutarada ee bangiga haddii aad xakamayso domain controllerka waxaad xakamaysay wax kasta oo shabakada ku jira baarihii ayaa markiiba xog u diray Shiinaha ayaa siiyay software ogolaanaya inuu maamulo kombiyuutarada kala fog haddaba arintu waxay noqotay bal inuu ogaado haddii lala socdo oo kombiyuutarkiisa lagu dhex jiro iyo haddii aanan lagu dhex jirinba markiiba wuxuu furay waarkiisa wuxuuna ku qoray ereyga Raashiyaanka ah ee hello wax yar kadibna kaarsarka ayaa hoos u dhaqaaqay waa loo soo jawaabay macnaha nama qaban kartiin ayuu ku yiri shaqaalaha Kaspersky-ga wuxuu ugu jawaabay waan idin qaban doonaa maya nama qaban kartaan ayuu ku yiri hackerka okay ayuu yiri waxay qaateen waqti laakiin ugu dambeyn kooxda Kaspersky-gu waxay heleen viruskii ama malware-kii haddaba magaca Carpana waxay ugu magac dareen tuugadan viruska ama malware-ka loo isticmaalay operationka haddaba dhacdadani ka dhacday bangiga Ruushka waxay siisay Yuri iyo asxaabtiisa tilmaamo ku aadan waxa socda waxayna si toos ah u xiriiriyeen dhacdadii ATM-yada Ukraine ee lacagta laga xaday hadda waxay awoodaan inay fahmaan sida kooxdan Carpana u shaqeyso
waayahay aan dib ugu laabano sheekadii Faarax. waa 8 Abriil 2014 mid ka mid ah kooxdii Carbonag wuxuu haystay akoonka emailkii Sergey, laakiin hadafkiisu waa inuu galo kombiyuutarka Faarax oo aan markii hore idin soo sheegay. Sergey waa Faarax saaxiibkiis oo ay iskala shaqeeyaan bangiga, sidaas darteedna kooxdii Carbonag wuxuu u diray email wata file Word ah oo u isticmaalay inuu ka faa'iideysto nidaamka kombiyuutarka, balse gidaarka dambe ee Wordkaas waxaa ku hoos qarsanaa malware ama software awooda inuu soo dejiyo program loo yaqaano backdoor, af Soomaaliguna yahay albaabka gadaashi. Tani waxay awood u siinaysaa hackerka inuu si toos ah ula socdo kombiyuutarkii Faarax isagoo gurigiisa jooga. Talaabada xigta waa inuu helo xakameyn dhammaystiran oo ah inuu la wareego nidaamka bangiga. Kadib hackerku wuxuu soo dejiyay software gudaha kombiyuutarkii Faarax, balse Faarax kombiyuutarkiisa oo aad u gaabiya hawshiisa, taasoo ugu wacan tahay Faarax inuusan update gareynin Windowskiisa. Tanaa ka xanaajisay Faarax oo kombiyuutarkiisa culays baahsan ayuu ku arkay. Wuxuu wacay IT-ga si uu u fiiriyo culayska kombiyuutarkiisa ka dhex jira. Markii IT-gu yimaadayna, hackerkii markiiba wuxuu soo dejistayba Keylogger, waa app diiwaan geliya wax kastoo lagu qoro kombiyuutarka Faarax. IT-gu markii uu helay kombiyuutarka wuxuu bilaabay baaritaan. Intii uu ku jiray baaritaanka ayuu qoray ereyga sirta ah ee bangiga. Hackerkii wuu arkaa wax kasta uuna la socdaa wax walbo ka dhacaya kombiyuutarka Faarax, balse hackerku wuxuu isku dayay inuu adeegsado sirtaas si uu u galo domain controllerka. waa isla sirtii uu ka helay Faarax kombiyuutarkiisa. sidaas ayuuna ugu guuleystay inuu galo systemkii guud ee bangiga. Kadibna wuxuu raadiyay kombiyuutarada shabakada ku jira ee xakameeya wareejinta lacagaha iyo ATM-yada, laakiin hackerkii weerar muuna fulin. taasi beddelkeed wuu aamusnaa, wuxuuna daawanayay habka shaqada u socoto. Markuu fahmayna ama u bartay sida wareejinta lacagaha u socoto, markaas ayuu bilaabay inuu lacagta xado. aan wax yar idin soo koobo saaxiibayaal. kooxda Carbonag waxay isticmaaleen 3 waxyaabood oo ay lacagta ku xadeen. Ta koowaad, tuugadan waxay isticmaaleen hab aad u xeel dheer. marka hore, lacagta ay si qarsoodi ah uga wareejiyaan akoonka bangiga iyadoona cidna ka warhaynin, laakiin si bangigu u fahmin in lacagta la xaday, waxay sameeyaan lacag fake ah oo ay ku daraan lacagta lagala baxay bangiga si bangigu ugu maleeyo in wax walba ay normal yihiin. tusaale, haddii ay rabaan inay xadaan $10,000, waxay xisaabta ku darayaan 10,000 oo been ah, kadibna waxay kala baxayaan 10,000 oo sax ah. marka bangiguna caadi ayuu u arki doonaa 10,000 oo fake ah. bangiyada inta badan waxay hubiyaan akoonka 10 saacba mar. tanaana ka caawinaysa tuugada inay si fudud waqti fiican u helaan oo ay lacagta ku qaadan karaan. habka labaad, waxay toos u aadaan ATM-yada si ay lacagta ugala baxaan. kadib markii ay hackerskan lacagta jabsadaanna, waxay kireystaan rag loo yaqaan money mules. waa rag u maamulo mafiyada Movian. Anyway, faahfaahinta Movian ma galayno. kooxdan money muleska ayaa lacagaha ka soo ururiya ATM-yada lagala baxay lacagta, kadibna u dira hogaamiyaashooda. iyaguna waxaa la siiyaa qayb yaroo lacagta ka mid ah. habka saddexaad ahna habka ugu xeel dheer ee lagu xado lacagta, hackerku wuxuu adeegsanayaa hab aad u maskax badan. waa khiyaano si farsamaysan loo sameeyo. guud ahaan waxay tirtiraan iswareejinta iyo ATM-yada si aynan raad u reebin ama aanan loo soo tixraacin. tusaale ahaan, qodobka koowaad, hackerku wuxuu furayaa akoon bangi oo magacyo dad kale ay leeyihiin. qodobka labaad, akoon kasta uu sameeyo wuxuu ku darayaa lacag aad u yar oo sax ah sida $5 oo kale iyo wixii u dhigma. kadibna qodobka saddexaad, hackerku wuxuu si qarsoodi ah u galaa keydka xogta bangiga ama waxa loo yaqaan database-ka, taasoo ah meesha bangigu ku keydiyo dhammaan xogta akoonka. halkaas ayayna ka beddelaan qiimaha lacagta. wuxuu bangigu tusaa in $5 ay u dhiganto $1 milyan oo dollar, iyadoo xaqiiqadu lacagtuna ay tahay $5 oo keliya. natiijadu waxay noqonaysaa, haddii qof leh akoonkaas uu fiiriyo, wuxuu arkaa in xisaabtiisu ay ku jirto $1 milyan oo dollar, inkastoo lacagta dhabta ah ay weli tahay $5 oo keliya. waa khiyaano muuqaal ahaan ka dhigaysa qof kasta milyaneer, laakiin waa marin habaabin bangiyadeed oo loogu talagalay in lagu khiyaano bangiga iyagoo u malaynaya inay sax tahay. ujeeddada hackerka marka akoontisyadan milyaneerada ah uu tuso in lacag badani ku jirto xisaabtan, wuxuu markaana sameeyaa inuu lacagta kala baxo ATM-yada ayna toos ula bixi karaan iyagoo adeegsanaya debit cardskooda digitalka ah, iyadoo bangiga la khiyaanayna u malaynayo lacag dhab ah inay tahay. hadda waan filayaa inaad fahantay siduu u dhacay weerarka lacagta ee ATM-ka lagala baxay ee sida waalan u soo daadiyay lacagta.
intuu socday baaritaankii Kaspersky-ga waxay ogaadeen farsamooyinka kooxda Carbonag oo ay ahayd qorshe aad u xeel dheeraa. Kaspersky-gu waxay la wadaageen arrinta Europol-ka, bangiyo waaweyn Yurub iyo sidoo kale hay'ado sharciyadeed oo kala duwan si gacanta loogu dhigo dambiilayaasha. Waan soo fahanay habku ahaa qorshaha dhaca. Markaan waa in la soo qabtaa dambiilaha. Laamaha ammaanka waxay awoodeen inay burburiyaan qaar ka mid ah serfaradii hakarada, laakiin kooxdii Carbonag waxay u guureen hab kale oo cusub. Howlahoodu si qarsoodi ay u wateen. Qorshayaashii dhacay ay fuliyeen bilowgii 2015. Carbonag ayaa dhacday ugu yaraan 100 hay'adood oo maaliyadeed oo ku yaala ku dhawaad 30 waddan. Dhibanayaashu waxay badankood ku yaaleen Ruushka, laakiin sidoo kale waxay weerareen Mareykanka, Shiinaha iyo Yurub. 2 sano gudahood waxay xadeen lacag lagu qiyaasay 1 bilyan. Waxay u ekaayeen kuwa aan la joojin karin. Bangigii ugu horeeyay ee la weeraro waxaa laga dhacay in ka badan 70 milyan New Taiwan dollar ah. Lacagahaasi waxaa laga bixiyay labada magaalo Taipei iyo Tianjin, iyadoo la adeegsadayna 34 ATM iyo 20 laamood bishii Julaay 2016. Kooxda Carbonag waxay beegsadeen bangiyada la yiraahdo First Bank ee Taipei, laakiin markaan booliiska Taiwan way soo jeedeen oo dadaal ayay ku jireen. Ugu yaraan 500 oo askari ayaa la howlgeliyay si ay u eegaan, iyagoo dib u baaray muuqaalada laga helay hoteelada laga shakisanaa. Waxay ogaadeen in la shaqaaleysay 22 money mules, badankoodna waxay ahaayeen Ruush, kuwa kalena waxay ka yimaadeen bariga Yurub. 19 ka mid ah waxay si guul ah uga baxsadeen Taiwan. Arrintaas muhiimad ay inoo leedahay. Inta baxsatay iyo inta gudaha ku jirto xusuuso, waxay ahaayeen 22 qofood oo lacag ururiyaal ah. Waxaa baxsatay 19. Haddaba imisa ayaa gudaha ku jirta? Waa 3 qof sax? 3doodii ee money muleska ahaayeen waxay ku sugnaayeen gudaha dalka Taiwan, iyagoo haysta lacagtii. Wajiyadooduna waxay ku baahday dhammaan warbaahinta si ay u baxsadaan. Waa in si degdeg ah lacagta u qariyaan. Midkood wuxuu 2 boorso lacaga ku qariyay Dongguan, wuxuuna u baxsaday degmada Yong si uu halkaas ugu dhuunto, balse waa la qabtay. wuxuuna booliisku tilmaamay meesha uu lacagta dhigay. Laakiin markay booliisku yimaadeen waxay heleen hal boorso kaliya, mid kalena uu qaatay qof kale, balse markii dambe ay heleen booliiska. Waxaana la sii dabagalay raadadka ragga kale ee lacagta sitay. Nin kale oo lagu magacaabo Bobby oo asna tuugada ka mid ahaa ayaa qariyay lacagta oo ahayd 2 boorso oo weyn. Jidka tareenada ee Taipei Central Station ayuu ku qariyay. Wax yar kadibna 2 nin oo ka yimi bariga Yurub ayaa yimaaday Taiwan. waxayna soo qaadeen boorsooyinkii yaalay Taipei Central Station kadibna waxay aadeen hotel si ay uga quraacdaan. Markay fariisteen waxaa soo galay booliiska, waxaana markiiba lagu yiri istajiya hada dhaqaaqina waad xirantihiin soo raaca. Booliiska ayaa tagay qolkii hotelka ay ka degnaayeen. Gudaha qolka waxay ka heleen lacag cadaan ah oo dhan 1.5 milyan. Booliiska Taiwan waxay ku guuleysteen inay soo celiyaan 90% lacagta la xaday. 3 money mulna waxaa lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah. Laakiin raggan waa howlwadeeno, balse markay baareen teleefankooda mid iyaga ka mid ah booliisku waxay ka heleen sawir muujinaya lacag kala duwan iyo emails laga helay nin looga shakisan yahay inuu yahay maskaxda ka dambeysay kooxda Carbonag. Waxaa la isugu tagay sidii loo heli lahaa maskaxda dhabta ahayd ee Europol, FBI, shirkadaha amniga internetka iyo hay'adaha caalamiga ayaa bilaabay baaritaan weyn. Laakiin waxaysan ogeyn in ninka ay raadinayaan uu ku sugan yahay dunida kale isaga oo nolol raaxo leh ku nool. Balse 6 Maarso 2018 nin loogu yeeray Denis asal ahaan Ukrainian ah balse hadda ku noolaa dalka Spain. Gurigiisa ayuu iska joogay, badanaa ma baxo. waqti xaadirkaasna sida caadiga ah wuxuu ku mashquulsanaa qorista malware cusub, yacni virus cusub ayuu abuurayay. wuxuuna ka mid yahay kuwa ugu xirfadda badan hacking-ka. Si uu isku qariyo lacagihiisii badankood wuxuu ku isticmaalaa Bitcoin. waqtigaas wuxuu haystay 15,000 oo Bitcoin ah, taasoo sanadii 2018 u dhigantay 162 milyan. maantan waxay ka badan tahay 1 bilyan oo dollar. Markay gurigiisii galeen laamaha ammaanka, laptopkiisu wuu furnaa. Kooxda baaritaanka forensikuna waxay si degdeg ah u bilaabeen ururinta cadeymaha. hay'adaha amnigu waxay la wareegeen 2 BMW, dahab iyo waxyaabo kale oo qiimahoodu yahay $5 milyan iyo Bitcoin-kiisa. Laakiin weli qaybta ugu badan lacagta la dhacay lama haayo, way maqan tahay. Denis waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay howlgalka, laakiin ma ahayn qof keligii ka shaqeynaya arrimahan. Waxaa la rumaysan yahay in kooxda ka dambeysay weerarkan ay ka koobnaayeen ugu yaraan 10 ilaa 30 qof, kuwaasoo ka shaqeynayay hawshan adag. Dabayaaqadii 2018 3 nin oo Ukrainian ayaa la xiray, waxaana lagu tuhunsanaa inay qayb ka ahaayeen kooxda Carbonag. waxaa laga shakisan yahay in kooxaha Joker Stash, Carbon Spider iyo Cobalt Spider oo ahaa koox Russian ah loo ogolaaday inay xor u noqdaan, iyadoo dowladdu uga dan leedahay inay carqalad ku abuurto reer galbeedka. maadaama siyaasaduhu isku khilaafsan yihiin, bangigii Faarax uu ka shaqeynaya wuxuu lumiyay malaayiin dollar. laakiin sida hadda la ogyahay, tan si fudud ayaa looga hortagi karay hadduuna furin emailka lagu gaaday isaga. kooxda Carbonag waxay ka faa'iideysteen amni xumadii haysay Faarax, laakiin Faarax
wuu ka dhaxsanaa wuxuuna ku mashquulsanaa arrimo kale yani jacayl iyo arrimo kale ku jiray wuxuuna iska ilaaway inuu sameeyo Windowskiisa update markasta oo Windowgaaga update gareyso waa markasta oo aad iska difaacdo waxyaabaha markaa internetka la soo gaado inaad update gareysaa ayaa ka wanaagsan wax walba waxayna ku badbaadin karaan xogo badan oo muhiim ah